ciidanka dabdamiska magaalada Hargeysa ayaa markaa ay u gurmanayeen goob dab ka kaca dhibaatooyin badan oo shiid ah kala kulma dadka qaarkii. dhibaatooyinka noocaas waxa ugu dambeysay in daraad 10 kamid ah ciidanka dabdamiska nabar la gaarsiiyay iyagoo u gurmanaya xaafadda isku raranta ee la yiraahdo State House oo dab ka kacay. haddaba wariyaha BBC da Hargeysa Axmed Saciid Cige ayaa arrinkaasi ka wareystay taliyaha ciidanka dabdamiska Somaliland Cornel Ahmed Mohamed Hassan Ahmed Sawahili dadkii marka ay Hargeysa kala gurmanaysan way dadka way dishiidayaan wada arkayso marka halkan xaafadan isku raranta ee gubatay marka gurmatay ilaa 10 askari baa la idinka dhaawaco qaarkood indhaha xataa dhaqaale laga dhacay marka hore taas aad iyo aad u foolxo waxaan islahayn sanadkii ugu horeeyay ay horta arrintan bilaabantay waxaan labada sanado dambe wacyigelin farmaan sameeyay in dadweynuhu inay wacyi gashaan معلومة لنا وحويان وحويا بدن تدبير صدق صدق معلومة تدرس شغالي واللي ما نعرف دبدم يسوق برماني أو شيء لقاه المادو وحن قرية دبدم يسكر كيس كسر إنسان بيل وال بس تحت غرف قنانو وحن هاي دبدم يسوق دخسها بدن له هسه إيش تدويني قالت خودي فاهم مايان مركب ورثة أدرس بغاديان مرلواتنا أنا أقول تلفون كيوان 990 وحق راعيان 999 بقراعيان قولي مركب دمادو ayaa loo saxay raqamkii markaas markaan u tagno ayagoona waa soo raagteen anoo computerizer ku shaqeynaa markaas soo raagidaas ay idin leeyihiin inay shiidiyaan meed dadkii waxa weeyaan nin walba waxaan waqtina guri shan waqtina Hargeysa ma sugi manaysa qof walba xarmay inuu galo uu daawado markaan aano war meelaan tuubay kala marna ma hayneen naga durkana waa shiid kaas dabkani kaco degalkaad u hooyatiyo daartaada gubaya anna aan diyaar ahay kuna wada dabdamiskii haddii ay u diidaan dariiqan u mari laa dad iyo way soo taagtaan marka aan dib uga dhaco hawshii la ii diray misna aa ku doodaan doorkay meeli gubataba dunidoo shuf beeshu dabdamiskana yimaada ma dadka dambiga qaba mise waa dabdamisyada